xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xariga fiber optiga ay dawladda Djibouti leedahay ayaa waxa la soo marinayaa badda Berbera arintaasi xariga sidoo aragta bismillaahir rahmaanir rahiim adeer waan maqlinay ilaa shalay magaalada way ku jirtay waxa la yaaba in fiber optican annagu Djibouti nama xukunto haday tiri waxay ku bilowday Soomaaliya waxaan gelinay fiber optic Afrika dhammaan gelinay baylaan waxaan kaga bilaabaynaa Berbera ayaan kaga bilaabaynaa oo Soomaaliya muqdisho ku xigsiinina Nairobi Mombasa ilaa South Africa halkaas ku gelinayna horta waxaan u sheegnay Djibouti in la yiraahdo annaka Soomaaliland haddana Soomaaliland fiber optican markaan baas kareynay uu noogu jiraa Djibouti buu kaymo waa shirkad baa la siiyay waan baarlamaanka la siiyay waxa la soo mariyay Djibouti intaas oo dhan baa la soo mariyay marka waxaan leenahay annaka Soomaaliland ma leeyahay hadii in ka qaldan tahay hal ugu dhaarso Soomaaliland inta qaran jira oo jiri doona insha Allah bismillaah kariin oo caalan leh oo madaxweyne leh oo wax walba leh oo aan Djibouti laga maamulo ayaan leenahay marka walaal waxaan ku leenahay reer Djibouti hadaldaama in hargadaamada naga deysta annaka dawlad baan nahay halkiina Allah inuu ka asturo annaka halka ku asturo marka xildhibaan xariga fiber optigeeda ansixiseen ma shirkad kaliya oo hadda taynu ognahay ee Soomaaliland ka shaqeysa oo kaliya ayaa loo xiray sanadada loo xiray shirkadaasi aad baarlamaankiina ansixiseen waa intee shirkad qura loo xiray 15 sano baan 10 baa tagay 15 baa hadsan taabadee qaladiya saxab si loo wansixay oo loo ansixiyay marka waxaan leenahay imika hadda leedin shirkadii baarlamaanku ansixiyay laga qaado hal la mariyo muqdisho la mariyo Soomaaliya aanu darsan yeeli meeyna baan leenahay wasiirka isgaarsiinta shalay waa ka hadlay waana ku raacsanahay